قدوديو كيسي أن عبسونيو ويل الكارتي يا كوبتي كما يدلن هنقد إيا كنتال كوركور إيا طوفان كوتو ينكيجي هاكو أنكودو مونوكون ولا كيري أما قول ولا كيري أما قول sida aad ku maqlayseen waraysiyadii idaacadayadii hore ka baxay waxa jiray xasuuq wadareed ay ciidamada wayaanuhu ka geysteen meelo badan oo wadanka Ogadenya kamid ah gaar ahaan Malqaqa oo ku taala koonfurta magaalada Jigjiga xasuuq wadareedkaasi oo ay ciidamada wayaanuhu ku dileen in ka badan inta la hubo 170 qof oo rayida kuwaasi oo u badan haween dad duqeeya iyo ciyaal ayaa waxay jabhada wadaniga xoreynta Ogadenya ka soo saartay war murtiyeed ee arintaasi ku shaacinayso war murtiyeedkaasi ayaa waxa uu qornaa sida tan laga bilaabo 18 bishani May sanada 2010 waxay xukuumada Itoobiya iyadoo fulinaysa siyaasadeedii ahayd inay shacbiga Ogadenya mariso ciqaab wadareed u soo dirtay ciidan ballaaran oo gadoodsan kuwaasi oo dhibaatooyin xoogan ka geystay agaarka Malqaqa dhul gaaraya 50 kiiloomitir oo wareeg ah ciidankan naxariista daran ee lahayn sharci waabiya ayaa ilaa iyo hadda inta la og yahay waxay laayeen 170 qof oo shacab ah oo aan waxba galabsan iyaga oo dhaawac iyo jirdil ba'an u geystay boqolaal qof oo kale dhibaatadani waxay ka dhacday dhulka u dhaxeeya Malqaqa Faarso Galaalshe Faafan Bambaas Gorayga iyo Baabili dadka la laayay badankoodu waxay ahaayeen oday beeleedyo iyo dad beeraley ah iyo xaasaskoodii iyada oo bulshada Malqaqa ay yihiin beeraley aan guurguuri karin oo noloshoodu ay ku xidhan tahay oo kaliya beeraha iyo xoolaha nool ay dhaqdaan ciidanka Itoobiya oo dhex mushaaxaya dhulkii miyiga ah ayaa ku tooganayay ragga ay qabtaan caruurta iyo xaasaska hortooda iyaga oo garaac iyo kufsi ama dil u geysanaya haweenkii dadkii agagaarka deganaa ayaa ka firxaday argagixiskan marka ay maqleen oo duurka ayay galeen iyaga oo ka tagay xoolihii ay lahaayeen iyo waliba beerahoodii markay maqleen oo duurka ayay galeen si ay u sii go'doomiyaan bulshada Malqaqa waxay ciidamada Itoobiya kala xidheen magaalooyinkii iyo tuulooyinkii goobahaasi aan tilmaanay ku yeelay si dadkaasi dhibaataysan aan wax gargaar iyo gurmada looga keenin mujtamacii ka agdhowa waqtigan la joogo boqolaal caruur iyo haweena ayaa ku dhumaalaysanaya duurka iyagoo aan haysanin wax raashin ah iyo waliba gabaatoona waxay ciidamadii goobtaasi yimid baabi'iyeen beerihii ay dadku tabacadeen iyagoo xoolihiina ka kaxaystay qaarna halkaasi ku qalqashay General Samora Yunis oo ah banduulaha ciidanka gumaysiga Itoobiya ayaa booqasho ku yimid Jigjiga 8 bishani June isagoo oo ku bogaadinaya ciidankiisa dhibaatada ay shacbiga u geysteen isla mar ahaantaana siinaya amar horle oo ku saabsan sidii looga fulin lahaa Ogadenya oo lagu xasuuqayo dadka shacbiga ee halkaasi ku dhaqan dilka sharci darrada ayaa sii xoogaystay labadii bilood ee la soo dhaafay iyadoo dad ka badan 60 qof lagu dilay meelo kala duwan oo Ogadenya kamid ah waxaa intaa dheer iyadoo ciidanka Itoobiya uu soo xoojiyay cunaqabatayntii 4 sano ee la soo dhaafay saarnay dalka Ogadenya taasi oo si xad dhaaf ah kor ugu qaaday sicirkii raashinka siina kordhisay dibkii horay u haystay dadka shacbiga sidaas darteed waxay jabhada wadaniga xoreynta Ogadenya ugu baaqaysaa xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka in si degdeg ah ay wax uga qabtaan arintani oo talaabo wax ku ool ay ka qaadaan sidii loo joojin lahaa xasuuqa ka soconaya Ogadenya iyo in taageero degdeg la gaarsiiyo bulshada ay xukuumada Itoobiya baabi'isay مدهمدوبيو وهيرين كاروستاي سويكتي وحقابو وروردا دوبيو هذا ما هاودودو أفك ما حادو حيرتين ونوضو بيكتين مدهمدوبيو وهيرين كاروستاي سويكتي وحقابو هذا ما هاودودو أفك ما حادو حيرتين ونوضو بيكتين ودو غطان سيسان قولو لها تقريبو Ogadenya كلك عين Ogadenya كلك عين
macadka IHASA oo afka qalaadna loo yaqaano Institute of Horn of African Studies and Affairs saldhigiisuna yahay dalkaasi Mareykanka ayaa waxa uu soo saaray warmurtiyeed uu ku shaacinayo kulankiisa sanadlahani kaasi oo ku sheegay in uu qadiyada Ogadenya iyo dhibka Ogadenya ka jira diirada ku saarayo macadkani ayaa wuxuu kulankaasi qaban doonaa 18 bishan aan ku jir June kaasi oo ka dhici doona jaamacadda Minnesota ee dalkaasi Mareykanka macadka ayaa wuxuu warmurtiyeedkiisani ku sheegay khubaro fara badan aqoon-yahano iyo madax dalka Mareykanka ka tirsan oo kulankaasi ka soo qayb galaysa haddaba waa kan wariye jaamac dheere oo warmurtiyeedkaasi la socodsiiya معهدك عالمي ee daraasaadka arrimaha Afrika ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in shirkiisa sanadlaha oo ka dhici doona jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka diirada lagu saari doono shaqooyinka geeska Afrika ka jira gaar ahaan xiisadaha Ogadenya ka aloosan macahadkan ayaa warmurtiyeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kulankiisa sanadkan oo dhici doona 18 bishan halku dhag looga dhigi doono in horay iyo gadaalba arrimaha Ogadenya lagu eego iyadoo ay Minnesota University qaybta Human Rights Center kala qayb qaadan doonto macahadka IHASA martigelinta shirka sanadkan macahadkan oo loo soo gaabiyo IHASA war-saxaafadeedkan uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in dagaalada ka socda dalka Ogadenya ay ku nafwaayeen boqolaal nafood oo aan waxba galabsan iyadoo ciidamada Ethiopia ay ka wadaan dalkaasi xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadamaha ujeedada shirka ayaa waxay tahay sida uu macahadku sheegay in la xidhiidhiyo qurba joogta Ogadenya iyo khubaro aqoon u leh wadamada geeska Afrika oo jaamacadaha wadankaasi Mareykanka wax ka dhiga dadweyne fara badan iyo waliba siyaasiyiin wax qabad ah sidoo kale waxa ka soo qayb gali doona hay'adaha caalami ah iyo madax ka socota xukuumada dalka Mareykanka oo iyaguna shirka ka soo qayb gali doona iyaga oo isla falanqayn doona xaaladda siyaasadeed bulsho iyo tan dhaqaale ee dalka Ogadenya iyo mustaqbalka sidii nabad waarta looga dhalin lahaa dalka Ogadenya waxa ka soo qayb gali doona shirka dad aqoon fiican u leh arrimaha geeska Afrika oo ay ka mid yihiin Dr. Barakat Habteslaase oo ka socda Chapel Hill North Carolina Edmund Keller oo ka socda University of California Dr. Teddy Vestal oo ka socda Oklahoma University Master Faisal Roble oo ah aqoon-yahan madax bannaan Dr. Asafo Bayane oo ka socda San Diego State University Dr. Samantha Haste oo ka socda University of California iyo Dr. Ali Khalif Galayd ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxa kale oo weheliya aqoon-yahanada iyo khubaradaasi dad metelaya hay'adaha xuquuqul insaanka iyo horumarinta nabadgelyada oo baac dheer ku leh majlisyada dawliga ah sida Human Rights Watch, Alliance for Peace Building iyo Genocide Watch oo soo bandhigi doona xogta ay ka hayaan wadanka Ogadenya waxa aqoon-yahanada iyo ururada xuquuqul insaanka u dooda ay muddada uu shirku socdo isla rogrogi doonaan siyaabihii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda Ogadenya oo xal waara oo cadaalad iyo sinaan ku dhisan looga gaari lahaa qadiyada Ogadenya iyo guud ahaan sidii isbedel muuqda looga samayn lahaa bulshada ku dhaqan xayndaabka waxa loo yaqaano Ethiopia macahadka IHASA waa hay'ad aan ribixdoon ahayn oo himilada ay leedahay uu yahay in la baaro la qoro oo la soo saaro macluumaadka dhabta ah ee ka jira geeska Afrika wuxuu aaminsan yahay macahadka IHASA in shacabka ku dhaqan geeska Afrika uu yahay shacab leh xayawiyad oo dhaqdhaqaaq badan wuxuu macahadka IHASA ku xeel dheer yahay siyaasadaha iyo falalka horumarinaya dawlad wanaaga iyo sidii looga hortagi lahaa waxyaabaha dhalinaya dagaalada ka socda geeska Afrika sida gumaysiga Ethiopia iyo waxyaalaha lamida oo inta ay jiraan aanay soo gabagaboobaynin shaqaqooyinka ka oogan geeska Afrika guud ahaanba kaasina wuxuu ahaa jaamac dheere oo inoo akhriyay warmurtiyeedkii macadka IHASA